السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ونكسن داووديال meel kastoo aad adduunka ka joogtaan halka aan naga daawanaysaan waa barta Facebook aan ku leenahay ee adna channel inta uu socdo barnaamijkeena qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah uguna waaweyn YouTube-kii Marish Beauty oo hawada laga saaray waa kuma shakhsiyaadka lagu tuhmaayo in YouTube-kaasi ay hawada ka saaraan maxaa ka jira in Jack ama qurux ku dhigle uu ka dambeeyay sidoo kale waxaan idin haynaa xogo badan oo ku saabsan arimahaas fadlan haddii ay ku tahay markii kuugu horeysay oo muuqaalkeena ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa marka hore in aad muuqaalka like noo saarto sidoo kalena aad ka mid noqoto boqolaalka kun ee ku xiran barteena Facebook anigu waa Burhaan Cali halkaana waa adna channel ugu horeyntiina daawadayaal aan ku bilaawna waxa maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada haystay xisad weyn ama dagaal weyn oo u dhaxeeyay labada YouTubers ee kala ah Marish Beauty iyo waliba Jack ama qurux ku dhigle Marish iyo qurux ku dhigle dabcan dadka Soomaaliyeed ee baraha bulshada ku jira aad bay u wada garanayaan waxaase laga yaabaa in qaarkiin in la socon xiriirka rasmiga ah ee ka dhaxeeyay haddaba labadan shakhsi ee saaxiibaha aadka u ahaa dhowrkii sanana ugu dambeeyay baraha bulshada ku joogay qaab ay ku dheehan tahay farxad iyo qosol ayaa hadda waxa kala geeyay TikTok live sida aad la wada socotaanba aaladda loo yaqaan TikTok waxa bilihii la soo dhaafay Soomaalida ay ka bilaabeen ciyaar ay ugu magac dareen game taasi oo labada qof ee caanka ah ay baraha bulshada gaar ahaan barta TikTok habeenkii markii ugu yaraataba ay ka sameeyaan ilaa $2,000 Marish iyo qurux ku dhigle waxa ay iskula noolaayeen caasimadda dalka Kenya ee Nairobi sidoo kale sanadihii ugu dambeeyay waxa ay ahaayeen dadka loogu jecel yahay ama loogu hadalhaynta badan yahay barta loo yaqaano YouTube-ka iyo waliba TikTok Marish Beauty ayaa waxa ay u safartay dalka Canada halkaasi oo ay ka heshay deganaansho rasmi ah safarka Marish ee dalka Canada qurux ku dhigle waxa laga dareemayay in uu ka baxay garab weyn ama gacantiisii midig labadooda marka ay Kenya wada joogeen waxa ay isla duubi jireen muuqaalo aad iyo aad dadka Soomaaliyeed ay u jeclaayeen kuwa ayaa waxa ay ku xaman jireen in xiriir uu ka dhaxeeyo halka dadka kaleba ay aaminsanaayeen in labadan qof kaliya ay yihiin laba qof oo saaxiibo ah noloshana fahmay intaasi kadib dhowr habeen ka hor labadooda ayaa waxa ay soo wada galeen barta loo yaqaan TikTok ayagoo wada ciyaarayay game watay xamaasadiisa qof walba qofka kale waxa uu weydiinayaa haddii uu ka badiyo waxyaabo dadka ay lacagta ku dhiibaan oo ay ka mid tahay su'aal aakhireed waxa ka mid ah in lagu yiraahdo hebel saddex waxa xumaana nooga sheeg kaasi oo ku ah saaxiib tusaale aniga waxa leeyahay Maxamed Saciid Saxaaf waxa nooga sheegtaa saddex qodob oo positive ah ama negative ah waa dareemi kartaa markii aad qof saaxiibka ah laga weydiiyo saddex xumaantiisa ah noo sheeg waxa ka dhalan kara yaan war idinku daaline ugu dambeyntii labadooda waa ay isku dhaceen inta uu socday gameka Marish Beauty oo laga dareemayay xoogaa xanaaq ah ayaa qurux ku dhigle waxa ay ku tiri qosolkan maalayacniga ah maad naga dhaaftid haddaba ogow labadooda waxa ay ahaayeen laba qof oo saaxiibo ah xilli kasta oo ay muuqaal wada duubayaanna qurux ku dhigle aad iyo aad ayuu u dhool cadeyn jiray isla markiiba dadka comment ku dhiglayaasha ah ayaa commentiga waxa ay ugu soo qorayeen war Jack qofta iska tuur waa maxay qaabka ay kula hadlayso dad badan ayaa aaminsan in dagaalkaasi uu ahaa kaliya in lagu kala kacsado laakiin hadda sheekadu waa ay isbedeshay hore ayaa Soomaali waxa ay ugu mahmaahday war jiraaba cakaaru imaan haddaba maxaa kulmiyay in xilligan aan idin la hadlayo uusan ku jirin hawada YouTube-kii Marish Beauty dhowr saacadood haddii aan dib inii celiyo baraha bulshada dhan walbaba TikTok YouTube-ka Facebook iyo waliba aaladaha dadka ay dadku ku follow gareeyaan ayaa waxa ka socday campaign ama olole lagu magac daray washamsi kaasi oo lagu qaaday Marish Beauty waxa la arkayay dhalinyaro muuqaale iska soo duubaysa
oo barta TikTok-ga in ay tagaan ee Marish Beauty falowga kala laabanaya sidoo kalena YouTube-ka ayay dhahayeen unsubscribe ama subscribe-ka ayayba kala laabanayeen isla markiiba waxaa baraha bulshada soo galay hadalhayn weyn oo ka dhalatay arrintaas ilaa iyo hadda Marish kama aysan hadlin cidda ama sababta uu YouTube-keedu u maqan yahay laakiin warar hoose aan helayno ayaa noo sheegaya in arrintaasi uu qurux ku dhiigle uu wax ka og yahay laakiin ilaah baa naga og Maxamed Saciid waxa uu ku mahmaahi jiray wax kasto birbirqaadaha ma aha wax kasto la sheegana run ma ahan taasi oo uu ula jeeday in degdeg uu yahay amal sheedaan wax kasto aan maqashidna aad rumaysan karin laakiin Soomaali ayaan nahay wax walbaba banaanka ay u soo bixi doonaan dhowr saacadood kadib adiga maxay kula tahay yaad isleedahay YouTube-ka hawada waa uu ka saaray sidoo kale ma ku jirtaa shakhsiyaadka baraha bulshada ololaha lagu magac daray washamsida ka waday xilligan aad muuqaalka daawanaysid Marish Beauty TikTok-geeda follow muu ku yahay sidoo kalena maxaa ka leedahay YouTube-keeda hawada ka maqan intaas ayaan ku soo gabagabeenaynaa wixii wara oo ku soo kordhana waxa ku daawan doontaan barnaamijyadeena dambe ee soo socda YouTuber keeda balsan keese aqli badan labadee waa midka fiyuuska aad kala soo tagtay iyo midka fiyuuska u yimid what midka fiyuuska fahmin midka aad fiyuuska diyaaradda kala soo raacday iyo midka fiyuuska diyaaradda u soo raacay yaa aqli badan yaase doqonsan okay magac ii sheeg kusma fahmin ana waxa ka hadlaysin hebel yes caadi dadkan u fahman ana u fahmo hadaad fahmi weysay midka aad fiyuuska kala soo tagtay waa jaaq qurux ku dhiigle midka fiyuuska u yimidna waa dirisle labadooda kee aqli badan keese tabaala si jawaabta okay jaaga aqli badan dirisla dabaale that is it weligaa ma ku fakartay in qurux ku dhiigle aad isguursataan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun weligaa kuma fakirin miya inaad isguursataan jac Maxamed Yariiso qurux ku dhiigle maya ma ku fikirin marka aad su'aasha ka jawaabaysa laakiin maxaa isku xanaajinay ku fakirin سؤال I made this وكان جو reaction لا بان excuse me no more reaction brother weligeed kuma aysan fakirin inaad jac guursato yes dirisla qurux ku dhiigle waxa aqli badan qurux ku dhiigle dirisla waa dabaal saas bay uga jawaabto walaashay labadeeda su'aalo aniga fiiri Carlo su'aal waa laga soo tagay kula laabto waa khalad ya excuse me اسمع wax yar ka hor saas fiiri wax yar ka hor saas hadda maxaa isku xanaajinay aniga aan ka sanlaysto بس أنا حطوه بدي طريقة نقديها لازم كنا شير قريك وفكر كذا إلهه أي الله يقاد وك أي الله يا عبد الرحمن والله شغلة يدي أنا عن كاش الناس تورها ها عن كاش لا بدي أملي بدي أساسا نسكت جوا يا كورن وحنا كنا نحشر عندي أنا اللي ما حقول ayaa u jawaabtay